السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا ميل كستو دافها عالمka ka joogtaan barnaamijkeeni wax ka baro waayaha nolosha barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa waraysi aan la yeeshay maamulaha iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco kulid ku soo dhawo telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV iyo barnaamijka wax ka baro waayaha nolosha. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. walaalkayga ku soo dhawo barnaamijka aad ka wada waayaha hadaaray maamulkiisa dhagoolayaasha. waatahay mawlid waan kaaga mahad celeynaa waqtigaaga qaaliga ah ee aad nasiisay iyo sida wanaagsan aad noo soo dhaweysay. waxaad iga warantaa iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco ayaad maamula ka tahay marka iskuulka bal taariikhdiisa kooban wax yar gasii warbixin kooban. walaalahaan iskuulka taariikhda ku soo qoortay marka hore iskuulkani maraaxil ku soo bilaabay maraaxil kala duwan ku soo bilaabay iskuulkani dhibaatooyin fara badan ayuu soo maray maanta iskuulka ku shaqeynaya iskuulka waxaa la aasaasay 3 bishii 12aad 2006 imika waxa ka qalisay 2007 ka baxday. waatahay mawlid waxaan kaloo ku weydiin lahaa ardayda iskuulka wax ka barata tiradoodu waa ilaa laga weelaa tabaad laga yaabaa laakiin dhowr difaac way ka baxeen. waan gartay mawlid waxaan kaloo ku weydiin lahaa inama iyo hablo ay isugu jiraan marka dhinaca badnaanta oo kale kuweeba badan xagga inamada badan iskuulku leeyahay leeyahay marka ariga waxa ku soo gabilay inamada ayaa badan. kaasi waxa uu ahaa maamulaha iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco oo aan markaasi waraysigaasi aan la yeeshay. sidoo kale waxaan rabaa in aan waraysi la yeesho maamulka ku xigeenka iskuulka ku soo dhawow barnaamijka wax ka baro waayaha nolosha iyo telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV. walaalwaad mahadsantahay maxamed aad iyo aad baad mahadsantahay waan ku dhaw barnaamijkaaga aad iyo aad baad mahadsantahay saaka halkan nagu soo booqato runtii dhiirigelin wanaagsan baan u tahay ardayda iyo iskuulkaba adigna waan ku soo dhaweynayo ka TV ahaan bulshada. sidoo kale anaguna walaal waxaan idinka mahad celeynaa sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen iyo waqtigiina qaaliga ah ee aad nasiiseen. waxa tahay maamulka ku xigeenka iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco Khadar Cabdiraxmaan waxaan walaal ku weydiiyay waxaad bal aad si kooban aad iga warantaa goortii iskuulkan la aasaasay iyo taariikhdii magaranaysaa iskuulkan uu soo maray iyo dhammaan sooyaalkii nololeed ee uu iskuulkan magaranaysaa uu ku soo bilaabmay iyo maraaxishii uu markaasi uu soo maray iyo sidii uu uga soo tallaabsaday caqabadihii ka hor yimi oo dhan. dhagoolayaasha Burco waxaa la aasaasay walaal 2006 bishii 3 sida horeba uu sheegay maamul Mawlid. marka iskuulkan marxalado kala duwan buu soo maray marxaladaha uu soo maray waxa kamid ah waqti aanay dadka Soomaaliland aanay u baran in dadka naafada gaar ahaan dhagoolayaasha ay wax bartaan oo marka ay dadku arkaan ardayda ay oran jireen say wax u baran karaan laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin ardayda si wanaagsan bay wax u baranayaan way la qabsadeen deegaanka caqabado badan baa kaga iman jiray environmentka dadka ay la nool yihiin deegaanka oo ayo iyo waxyaabo dhibaato badan ku sameeyay jireen laakiin imika markay dadka barteen si wanaagsan bay ardaydu u soo dhaweeyaan ardayduna waxay la mid tahay in ardayda kale wax baranaysa iskuulada kale ku jira marka iskuulku marxaladihii uu soo maray waqti adag bay ahayd oo runtii uu ka soo baxay imikada lafteeda caqabado badan baa hor yaala. iskuulka waqtigii la aasaasay intii ka dambeysay 2 difacdood baa ka baxay klaaskii 8aad imikana wali qaar baa ku jira oo iyaguna sanadka dambe nooga bixi doona sanad dugsiyeedka 2018 marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in ciddii kasta iskuulka wax la qabanaysa ay iman doonto oo soo dhaweyn doonto. waatahay Axmed Cabdiraxmaan walaal si wanaagsan ayaad markaasi aad noogu faahfaahisay. waxaan kaloo rabaa in aan ku weydiiyo maadaama aad ka mid tahay maamulkii iskuulka ugu sarsareeyay ardaydan bal sida ay wax u bartaan iyo sida markaasi waxbarashadooda ay ugu dadaalaan bal maadaama aad waqti badan iskuulkan aad ku soo guda jirteen bal warbixin kooban taana iga sii. su'aal wanaagsan ardaydu say wax u barataa waxa weeye ardayda qaabka sign language kala dhada waxa lagu gudbiyaa oo luqad caalamiya international sign language baa la yiraahdaa marka way ka duwan xagga waxbarashada dadka dhagaa qaba maadaama dadkan xagga dhagaha ay iyagu aanay wax maqalkoodu marka wax noqonaysa in luqadda faraha loogu gudbiyo luqadana waa luqad international oo dunida oo dhan ka jirta
luqadaas ayaa ardayda wax lagu baraa marka ardaygu wax la barayo runtii waa caqabado ka duwan iyaduna sida dadka kale wax loo baro waa ardaygu wuxuu baahan yahay fahansiin waqti badan buu ka qaadanaya sharaxaad badan oo xagga faraha buu ka qaadanaya marka runtii waa arin dadaalkeeda iyo leh mudnaanteeda in la siiyo waan gartay waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo ardaydu tiradooda bal inaad ii sheegto ayaan doonaya ardayda tiradooda haatan imika waxay maraysaa ilaa 80 ilaa 70 inta u dhaxaysa dufcadii sanadkii dhaweed ka baxday marka laakiin inta ardaydu way isku soo daba dhacayaan oo way manayaan iskuulka sanad dugsiyeed kasta waan qornaa imika waxaan uga faa'iideysanayaa dadka daawanaya barnaamijkan ku nool gobolkan Togdheer inay hadii ay hayaan caruur dhagala oo cusub in dugsigu u furan yahay oo la diiwaan gelinayo la qaadanayo marka inay keenaan oo ay soo diiwaan geliyaan waana qori doonaa waxaan ku weydiin lahaa oo kale Axmed Cabdiraxmaan walaalo iskuulka markii aad doonayseen in aad furtaan wax caqabadaha oo idinka hor yimi oo dhanka waalidka la xiriira oo tusaale ahaan inay yiraahdaan oo kale sidee wax loo bari karaa dad dhigala magaranaysa aan waxba maqlaynin sidee bay ugu suurto gali kartaa in wax la baro taasoo kale ma idinka hortimi si hadday idinka hortimi sidee baad u xalisaan runtii waalidiinta qaar wax la yaab bay ku noqotay in marka la yiraahdo arday dhigala ba wax la baraya laakiin markii arday dugsiga timi ay la qabsadeen waxbarashadii ay nidaamkii arkeen si fiican bay waalidiintu u aqoonsadeen in ardaygoodu wax baran karo waxa dhici jirtay in ardayda xaafadda markay fadhiyaan ay arkaan walaalkooda iskuulka loo dirayo iyagoo ay codad ka qaadi jireen oo jiraan anaga maxay iskuulna loogu diri waayay marka taas maanta way ka baxday ardaydii iskuul bay yeesheen u gaara iskuulku waa dhisme ka kooban 14 dhisme ka kooban waxa 8 galaasoo dhismaha 2 office masaajid 4 suuli maxay geerkan weyn aad arkayso beer iyo meel ku ciyaaraan intaba uu leeyahay marka runtii wuxuu la jaan qaadayaa iskuulada caalamiga standardka caalamiga dadka laga qabo ama dadka kale baa dhigtaan waxba iskuulkan inuu ka sareeyo mooyaan kama hooseeyo waan gartay walaalo waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo iskuulka yaa maalgeliya ma xagga dawladda ayaa markaa laga maalgeliyaa mise waxa hay'ado ayaa gacanta ku haya iskuulka si joogto ah cid oo caawisa ma jirto laakiin marka laga tagi waayo macallimiinta qaar ayaa ka diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada halka qaarna aanay ka diiwaan gashanayn marka macallimiinta in waxoogaa gunna yar ayaa la siiyaa laakiin mushaar ku filan ma haystaan marka laakiin waxay la mid yihiin macallimiinta kale ee wasaaradda wax ka qaata si ka duwan looma guneeyo laakiin inta gunnada wasaaraddu bixiso ay qaataan marmarka qaar dawladda Soomaaliland waxa jirtay mar ay ugu deeqday kombiyuutaro marwada madaxweynaha waxa jirtay mar ay soo booqday madaxweynuhu oo ballan qaadiyo loo sameeyay runtii waxna way ka fileen waxna kama fulin laakiin marka iskuulka dawladda Soomaaliland buu ku tiirsan yahay oo runtii inkastoonan bariyahan dambe aanan waxba ka arkin laakiin wax badan intii hore la qabatay dhawaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay soo daabacday manhaj ma garanaysaa aad u wanaagsan oo tayo leh manhajkaasi ma idin soo gaaray oo markaa ardayda wax ma ugu dhigtaan manhajkan ka dhaxeeya guud ahaan Soomaaliland ee dhawaan la soo daabacay runtii waa manhaj aad iyo aad u fiican oo shirkan uga mahadcelinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Habane aad iyo aad runtii waa manhaj aad looga shaqeeyay oo ka duwan manhajkii hore loo dhigi jiray wax badan baan laga fahmi karaa khaasatan dadka dhagoolayaasha waxa aad moodaa in magaranaysaa iyaga laftooda tixgelin la siiyo saacashada loo soo diyaariyay inkastoo aanu gudbino oo aanan cod ku gudbin laakiin farahan ku gudbinaa marka aad iyo aad buu wanaagsan runtii manhajkaas waan gartay Axmed Cabdiraxmaan waxa tahay maamulka xogeenkii dugsiga marka maxaad adigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay uu ku siiyay telefishinka caalamiga ah Bulsha TV iyo barnaamijka wax ka baro waayaha nolosha maxaad codsi ahaan maxaad diri lahayd marka aad ka codsan lahayd dadka muxsiniinta iyo haday tahay dawladda iyo hay'adaha wax codsiya maxaad u dirsan lahayd aad baad mahadsantahay maxamedow runtii waxaan ka faa'iideysan lahaa fursadan mar kale waxaan u mahadcelinayaa telefishinka caalamiga Bulsha TV
barnaamijkana iyo noqonkii ugu horeeyay waxaan jecelnahay marar badan inaad nagu soo noqotaan waxaan uga faa'iideysanayaa walaal iskuulkan baahiyo badan baa yaala cid kasta oo iskuulka dhagolayaasha Burco wax taraysa ama noqdo dadka ka soo jeeda gobolkan Togdheer oo qurba joogta ama noqdaan guud ahaanba Soomaaliland dadka ku nool ama dawladda Soomaaliland ba hay'adaha caalamiga iyo kuwa NGO-yada kuwa maxalliga dhammaan waxaan ka codsan lahaa inay iskuulkan bal hadda ay eegaan oo ay wixii caawimaad tari karayaan way dadkan disability-ga dhagolayaasha waxay leeyihiin baahiyo gaar ah oo joogta way ka duwan dadka kale badana waxay ka soo jeedaan dad buura oo qoysas aan waxba haysan bay ka soo jeedaan badana waxa u badan yihiin agoomo qaaran hooyooyin lahayn ay u badan yihiin marka waxaan jeclaan lahaa marka qaar waxyaabaha la qaybinayo kale ama waxyaabaha macluumaadka kale in lala soo socodsiyo iskuulka oo ardayda wixii laga caawin karayo laga caawiyo macallimiinta haddii ay tahay tababarada haddii ay tahay kaalmooyinka kale bini'aadanimo marka xataa imika waxa iskuulka ku soo badanaya ardaydii barakacayaasha abaaruhu saameeyay xilliga abaaraha ay ka saareen xoolahoodii ayaa imika subax walba la qoraa runtii way isku sii badanayaan future-ka waxaan jecelahay xitaa iskuulku inuu boarding noqdo si ay u seexdaan carruurtu waxa kale oo u baahanay technical wax la yiraahdo farsamada gacanta maadaama ardayda iskuulka dhagolayaasha markay galaaska 8aad ay ka baxaan ay u baahan yihiin farsamo bartaan waxaan jecelahay cid kasta naga caawinaysa farsamada hadii tahay xukuumadda Soomaaliland oo runtii aan mahad ballaaran u hayo madaxweynaha qaranka iyo marwadiisa wasiiradii hore iyo wasiirada imka joogaba runtii shakhsiyaad far badan oo wax badan la qabtay ku jiraan imika waxaan jecelahay wasiirka waxbarashada suuna aad iyo aad noola shaqeeya in ay halka nagala sii wadaan oo ay wixii iyaguna dadka qurba joogta iyaguna danaynayaan iskuulkan markay maadaan iyo markay maqayn bayna nala soo xiriiraan iyadoo aan nambarada iyo ciwaanadeedu sheegi doono waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa maamula ku-xigeenka iskuulka dhagolayaasha ee magaalada Burco tahay daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijkeeni wax ka baro waayaha nolosha oo aynu ku soo qaadanay waraysiga aan la yeelanay iskuulka dhagolayaasha ee magaalada Burco dhinaca editinka iyo qaabaynta barnaamijku waa Khadar Cabdirasaaq Khadar Hanad dhinaca kamarada iyo sawir qaadistuna waa Axmed Shaafi intaan barnaamij lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa waa anigoo Maxamed Saciid Cali oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo